sidii halkan laga sheegay wasiiradii ugu horreeyay sheegeen waxaan u nimi hawsha dhakhtarka oo ay ka baxday emas waxaase aan jeclay inaan ka horraysiiyo tacsi aan u diro suldaan xasan barre warsame shire oo ku geeriyooday maanta gurmadkii u gurmanayay shiiqaaqada bariga ka dhacday ilaahay subxaana watacaala naxariista jannaa ka waraabiyo shaksi wanaagsan buu ahaa waxaan ilaahay uga rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu jannadiisa firdowsa aclaa geeyo intii ku dhimatay shiqaaqada ah ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo inta noola waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa nabad iyo in wixii xun meel looga soo wada jeesto in caqligu shaqeeyan caadifadu shaqayn in bulshadu aanay u hanqaltaagin dareenka xun ay dareenka wanaagsan u hanqaltaagto in dhib wixii maanta dhacay intaa ay ku koobnaato iyo shalay wixii dhacay intaa ku koobnaato oo inta nool loo taliyo oo aanay dhibtu intaa ka sii badan oo waayeelka iyo waxgaradka iyo culimada iyo sulaadiinta la dhegaysto baaqaasaan u diraynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala qalbigooda ha isu soo jeediyo boggooda barcadna ha isu mariyo intaa kadib waxaan u nimi sida halka la sheegay dhakhtarkaan noo nimi dhimaatinkii aanu dhakhtarka u nimi waxaa sababtu ahayd MSF oo ka baxday MSF maalin unbay bixi lahaydee way baxday waanu runtii ka xunnahay iyadoo aan waktiga u diyaarin oo yacni wakti ay wargeliso oo dadku uga diyaargaroobaan dawlad iyo shicibba inay baxdo oo si keliisa ku baxdo iyo sidoo kale waxaana xusayn oo dalkayga iyo dadkayga xusayn inay kaga baxdo waan xujaahayn waanu se uga mahad celinaynaa waxay u qabatay dalka iyo dadka intaa kadib haddii ay baxday waxay dee tala inagayna haysataa insha allahu tacaala kaalinta bannaanaatay inaanu buuxinno inagoo isku duwan baanuni haddii allaha waddan ogolaado dawlad ahaan 80% wixii kharashka ku baxayay ee maamulkii ay soo qorsheeyeen iyo guddigii dhakhtarku 80% ama wax ku dhow ayaanu ku talagalay inaanu ka dulqaadno oo bixinno waxaanu jecelahay 20% ka hadhay inay bixiyaan dadka reer burco ee ganacsatada iyo waxgaradka kala duwan inay bixiyaan 20% ka hadhay inay bixiyaan waynu qabsan karaa waxbaynu qabsan karaa maaha in hadday inaga tagtayna safayno haaway noqono oo miraahno dhakhtarka u dumaya waxaanu nimi inaanu kaalintaa buuxino dhakhtarku aanu waxba inaga noqono dumin inaanu dibadhac ku iman in dhakhtarku sidii wixii bulshada loo qabanayay adeegii bulshadu inaan waxba iska bedelin ee uu sidiisii kor u kaco waxa lagu taliyay oo dhakhaatiirta iyo ragga kale khibradda u leh iyo wasaaradda ragga ka joogay baa lagu taliyay maadaama kharashkii sidaas oo kale loo qaybiyay bulshadana aan u soo bandhigayno caawan leenahay laga qayb qaato waxa idinku soo hagaagana 20% ama wax ka yar reer burco waxaan leenahay ka qayb qaata waxa sidoo kale lagu taliyay in wax yar oo fiya oo markii hore free ahaa laga qaado dadka patientka oo ah haddii yani wax aad u tiraya oo aan dareen lahayn bulshada waxyaala laakiin se muujiya wax yar oo wuxuu isdan buuxiya inay ka qaadaan ma aha shaqo laga shaqaysanayo laga xoogsanayo qiimo aad u jaban oo isna ka qayb noqda wax u ururaya noqda wax loogu qabta noqda iyo waxaan dadka waxba yeelin waa sida dhaqaatiirta kala badankoodii in hargeysa dhakhtarka waa sidaas oo kale wax yar oo aad u yar baa laga qaadaa waxaas wuxuun bay noqdaan oo wuxuun bay qaabilaano marka la ururiyo wuxuun bay noqdaan waxaan jecelahay taana runtii in loo dareen qabo oo aanay noqonin wax ku soo boodaa ee taana loo dareen qabo boqolkii wax yani hal ama laba ah maaha yani waxa laga hadlaya waa waxa aad u tirayar oo aan sida la qorsheynayo kullaba cidii ku shaqada leh baad soo qorsheyn doonta oo ah maamulka halkan jooga waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaynu u baahannahay dhakhtarkaas inaanu leexinayno hareeraha qabanno waxaynu u baahannahay inaynu ogaano inaynu wax qabsan karayno waxaynu u baahannahay inaan dareen qaldan inaan la qaadan oo ah dhakhtarkii MSF baa baxdo dadku baktiimayo dadkan weligii uu soo jiray waanu jirayaa dalkanuna isagaa isku tashaday oo halkan soo gaadhay iyadoo aan la ictiraafsanayn oo dunidu caawin ayuu halkan soo gaadhay oo maalin walba bajetkiisu kor u kacaa
maalin walba budgetkiisu kor u kaca oo maalin walba horumar sameeya waxaan leeyahay wax niyad xumo ma jiraan maalmo ka xun baynu soo joognay sida halka laga sheegay oo aan wax laaliyo wax hoos yaala jirin oo duunsanaaba waxa laaliyo wax hoos yaalaana jirin dawladnimada aynu kaba cusbaynayna dawladnimada amaamudinba aynu farmalanahay farxad iyo niyad wanaag la soo galay un baa lala joogay waxa leenahay maanta dawlad iyo shicba aynu dhisanahay waxba noqon maayo insha Allah ta'ala dadku si qalbigu ka duma haddaynu qalbiga ka duno qofkii inaga dhaqaaqabaysnaana waynu dumaynaa waxba noqon mayno war waxba noqon mayno waynu jireynaa horena waynu jiray dalkeenana waynu ku tabcan karaynaa aanse niyad sami iyo isku duubni iyo kalsooni iyo meel uga soo wada jeed meel uga soo wada jeesto ku qaabilo taasaynu ku buuxin karaynaa kaalinta banaanatay dawlad ahaana way naga go'an tahay wax kastoo inagu qaadato kaalinta banaanatay inaanu buuxino aad iyo aad baa